Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome dear students to Grand Online Academy. My name's teacher Muhammad Habib and I will be teaching you this English grammar book. Bi'idhnillahi ta'ala, this is an introduction video which is about the book, what the book contains, the lessons that we have in this book and how we're going to study this English grammar book. Welcome dear students again to the Grammar for Spoken English. This is basically a book that will help you to improve your English and will also help you to speak English naturally and fluently, inshallah ta'ala. In this book, we're going to have a lot of important lessons that will help you with your everyday English. Let's talk about the book and how we're going to study, and I'll be speaking to you in Somali, inshallah ta'ala, so that each and every one of you will understand whatever I say. Dhammaan soo dhawaada ardayda qaaliga, ku soo dhawaada Grand Online Academy. Magacaygu waa Macallin Maxamed Habib. Waxaan idin dhigi doonaa insha Allah ta'ala buugan amaba koorskan yara gaaban ee Grammar for Spoken English. Bi'idhnillahi ta'ala, waxaan kaga sheekayn doonaa video yara gaaban inta cashar aynu qaadan doono, saynu qaadan doono casharada iyo inta casharada qaadan doono insha Allah ta'ala. Halkan waxaa inoogu yaala markaa 36 cashar ayaynu qaadan doonaa 36 units ama lessons. Dhammaan casharadan qaadan doona waa kuwa halkaa inoogu yaala contentskeena. Bi'idhnillahi ta'ala, aan idhaahdo tableka inoogu yaala waa casharo runtii aad u muhiima kaa caawin doona your everyday Englishka maalinlaha ee aad isticmaasho. Present simple to be waa casharka koowaad aynu qaadan doono. Waxaanu ku saabsanyay waxa weeyaan verb to be present oo loo isticmaalo the state of being. When you're talking about yourself, when you are talking about yourself, markaad naftaada ka hadlaysid, haddii lagu yiraahdo who are you, adigu yaa tahay, maxaad oranaysaa? I am Mohammed, anigu waxaan ahay Mohammed. What are you, adigu maxaad qabataa, adigu maxaad qabataa weeyaan. What are you, adigu maxaad tahay ama maxaad qabataa. I am a teacher, anigu waxaan ahay macallin. I am a teacher, anigu waxaan ahay macallin. Okay, sidoo kale dhammaan halkan saad ku aragtaan casharadan qaadan doona waa casharo aad u muhiima ka caawin doona luqadaada Englishka inaad si markaa dabiici ugu hadasho oo saxa. Saan hore u sheegay casharadan waxay ka kooban yihiin waa 36 lessons, 36 cashar kasta markaynu qaadano waxaynu maalinka xiga qaadan doonaa waa quiz ama waa activity layli baynu qaadan doonaa. Quizeska ama layliyada laba u kala bixi doonaan. Qaar waxaynu ku qaadan doonaa waa online baynu ku qaadan doonaa oo online baan idinku soo diri doonaa insha Allah ta'ala. Quizeska aad ku geli doontaan, qaarna waa qaar marka aynu buugga dhexdiisa ku qaadan doonaa insha Allah ta'ala oo buugga aad ka soo dhex shaqayn doontaan. Casharadu waxay bixi doonaan insha Allah ta'ala ama waad qaadan doontaan 5 cisho wiiga ka mid ah, maalinka Sabtida ilaa maalinka Arbacada. 5 cisho ayaan casharada idiin soo diri doonaa 7 subaxnimo saacadda bariga Afrika haddii alla yiraahdo, ama markaa sidoo kale 1 subaxnimo ayaan idiin soo diri doonaa every single day markaa qolooyinkeena walaalaheena markaa ku nool markaa Soomaaliya. casharadu insha Allah ta'ala waxay u bixi doonaa sidatan. waa casharo grammar ah oo idinka caawin doona luqadeena Englishka haddii alla yiraahdo. Sad ka warqabtaan grammarku wuxuu aad muhiim ugu yahay luqadda Englishka, waa lafdhabarta luqadda Englishka. Qofka si fiican markaa grammarka u yaqaana waxa uu markaa awood u leeyahay inuu in badan naftiisa ka warrami karo, magaalada ama meesha ku nool ka warrami karo. sidoo kale waxa uu markaa ka caawinaysaa inuu si fudud marka wax u akhriyi karo. akhriska way ka caawin doontaa grammarku. arday badan baa markaa ku dhibaatooday grammarka ama runtii ku adag yahay grammarku. insha Allah waxaan rajaynaynaa buugani inuu noqdo mid kuu fudaydiya ama ka qabtira dhammaan baahiyaad u qabto grammarka insha Allah ta'ala. sidoo kale san hore idinku sheegay 5 cisho aynu qaadan doonaa grammarka. waxaynu qaadan doonaa lots of quizzes and activities, layliyo badan si markaa insha Allah ta'ala aan u hubino ardayga inuu fahmay waxan iyo inaanu fahmin. bi'idhnillahi ta'ala khayr baan idin rajaynaynaa. mar labaad iyo mastaad ku soo dhawaada Grand Online Academy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.